waxaan kula talin lahaa ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta wadanka Bangladesh arinta labaad oo aan la yaabay oo dadkan u caadiga ah waxay ahayd dagaalanka qabyaaladda iyo musuqmaasuqa meesha la yiraahdo Saint Martin waa jasiirad aad qurux badan aad baan ugu dhawahay barnaamijkan quruxda badan ee uu daadihinayo injineer Cabdixafiid haddii aan iska warbixiyo waa Maxamuud Jibriil Axmed oo ku soo barbaaray magaalada Badhan waxbarashadiisii hoose iyo sare ku soo qaatay halkaas ka soo baxay 2016 bishii shanaad iskuulka Al-Furqaan u soo kicitimay wadanka Bangladesh yimi 2016 bishii sagaalaad bilaabay jaamacadda Daffodil International University 2017 bishii January dhameeyay Bachelor of Science and Technology 2021 bishii January Bangladesh waa wadan qurbe ah sideedaba marka wadan qurbe ah tagaysid waxyaabo cajiib ah la yaabtid baa kala kulmaysaa أنا أهانتي مركي عن إمادي ودن كان وحيابه يقول لي يابك بدنا أمريكا لي يابي وحكم إذا مالك معه وعن وديار جروبي إن سورد يستخد بدك معها كلنا قيبقات مسلمين تيتاك مساجدك أيا واحد عاي وحكسو الدقي حافظ دي عندنا مساجدك وحيد شيء قياس هانتي لح بقول أو متر مركي أنقولي كسو الدقي أيا واحد أركيبه الله كل مي جماعدي مساجدka ku xirnayd oo soo gaaray xaafadeedii iridkeedii runtii waxa ahayd arin aan aad u la yaabay oo la fajacay sababtoo ah masaajid aan tagi jiray oo iga foga oo aan u socon jiray ugu yaraan 6 daqiiqo oo soo gaaray jamciisu soo gaaray maxaa la xaafadeedii iridkeeda runtii waxa ahayd arin aad u la yaab leh oo aan la fajacay waxaana sababay in jamcu uu soo gaaro xaafadeeda horteeda waxay ahayd جمعها ودن كني عاد يعاد بي أدكدان سراد جمعة معلمها كله صوته أو معلمه مشغول بدن ودك شقة كتيران تذكرنا ودد overpopulation أو عاد بوبدينهن مركز أساسا صوتي إن أنتم مساج كي بحسمه مسنا يصوب بحسمان مليو الدواء أردن تاسع يا صوتي إن حاله يراها أي بدأتو جماعة يضدك كنت كني مساجك أنت اللبات أو عن لي يابي أو ضدك نوع عادي جا وحي هيد مرد حلاسة عن أبحي قبل وعاصمة ذاك بحي أيام أركي واحد شيبة أو دوني أدوين أو مركب عمل دوني بان أركي أو تاجن دول عادي أو مال بيان مركب عن تشرين أو دول عادي إسكأ دوني تاجنيد ما أركي مركز أوان يا ودتك بروح ويدي دوني ذا مش سكوتيمي مش وميل ديرلي ودول عادي مركز وحلي شيء إن دوني ذا أي ماشي كعتيمي صعنيسو مركي روبي ما ضو مركز واحد حل عن روب دين بيهايد سمر حل عمله كلا بيهايد مركز هالكاس وحن كودا وطن كان بيها عاد بدن مركز بيهم مر بيرادان ناقصان مركز دوني دن أو رنيد أو سعونيسي واحد عكرت مر إني ميل كدقته بروسين أو هالكيداس أي كوستاكتو صوتو أبيه بيرادا أمر دمارين مركز تاسنا واحد هيدا هن عاد أنا أولي يابي أنيجو عن إسكسارين جود هان وحن شعلان لها إن أنتلاهان دهو أرضيدا صوماليات guud ahaan gaar ahaan ardayda wax ka barta wadanka Bangladesh waxaan u baahanahay in aan dareeno mas'uuliyad ardaynimo oo ah in aan wax akhrino wax baadhno wax qorno hadii aynu arintaas ka dhabayno waxaynu ka mid noqonaynaa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala uu jecel yahay ee nabiyullaaha in Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina waxaan kala oran lahaa wax u baahanahay inaynu dareeno in aynu ku jirno adduun casri ah oo aynu haysano adawaadkii iyo waxyaa materialskii aynu kula jaan qaadi lahayn taa macnaheedu wuxuu yahay waxayna saaran waajib ka duwan kana salbalaaran waajibaadkii saarnaa jiilashii hore
waxaan kula talin lahaa ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta wadanka Bangladesh inay focus ka saaraan skills-ka yaryar oo la xiriira waxa ay baranayaan yeenin isku koobin waxa kaliya in jaamacadda kala ka barano sababtoo ah macalinku waxa uu ku baraya waxa weeye wax qoondaysan oo kooban laakiin waxa adigu raadisid oo adigu baratid ayaa bari ka maalin cid kaga hormari karta waxna ku noqon karta dear monahay laga yimaado faculty-gayga bugaagta la xiriira waxaan akhriyay bugaag tirsan buugii ugu saameynta badnaa wuxuu ahaa bug la yiraahdo The Power of Subconscious Mind oo qoray nin la yiraahdo Joseph Murphy waa bug ka hadlaya focus-ka saaraya awoodda maskaxeed iyo aqli ee aadanaha uu leeyahay dii aan noqon lahaa madaxweyne mustaqbalka waxaan wax ka bedeli lahaa waxbarashada sababtoo ah wax kaliya ugu muhiimsan oo ummad lagu hagi karo haddii aan oran lahaa waxyaabo ay dadku ugu tilmaamaan waxaan ahay nin afgaaban dib yar xagga cibaadana ku fiican hobbigay waxa weeye oo aan jeclahay inta badan inaan qabto ama marka firaaqada ahay waa jimicsiga noocyadiisa kala duwan horta sideedaba ma jeclay inaan noqdo dictator laakiin haddii ay dhacdoba sharciga koowaad oo aan soo rogi lahaa oo khasab noqon lahayd in lagu dhaqmo waxay noqon lahayd la dagaalanka qabyaaladda iyo musuqmaasuqa taladii ugu muhiimsanayd oo aan la kulmo waxay ahayd talo waalid oo barigii aan yaraa waalidkii oran jiray waxbaro cibaadada si wanaagsan u samay maanta ayaan arki karaa qiimaha taladaas dhinaca kale ma jirto talooyin xunxun aan la kulmay oo saas aan u xasuusto intii aan Bangladesh joogay dhowr magaalooyin baan booqday ay ka mid tahay Sylhet Cox's Bazar Saint Martin waxaan jeclaan lahaa oo dadka Bangladesh jooga kula talin lahaa inay booqdaan meesha la yiraahdo Saint Martin waa jasiirad aad qurux badan oo haddii waqtigu ii saamaxo waan jeclaan lahaa inaan mar labaad booqdo waxaan buugaas ugu magac dari lahaa imtixaan examination sababtoo ah waxaynu ku jirnaa nolol loogu talagalay in waxa aad qabanaysid laga qariyo berina lagu tuso oo macnaha markii qiyaamo ay noqoto lagu tuso marka waxaan u bixin lahaa imtixaan haddii ay noqoto dhinaca Soomaaliya waxaan jeclaan lahaa inaan ku noolaado magaaladeeda ku soo barbaaray ee ahayd Baran haddii ay noqoto inaan ku noolaado qurbana waxaan jeclaan lahaa inaan ku noolaado magaalada la yiraahdo Istanbul ee ku taala wadanka Turkiga والله runtii waa magacayga hadii aan bedeli lahaa waxaan dooran lahaa oo door bidi lahaa inaan ka fogaan magacyada la mahadiyay waxaan dooran lahaa Maxamed waxaan taageeraa Arsenal waxaan taageeraa Brazil Messi favorite color-kaygu waa black my favorite car waa Ferrari way libaxa waxaan u jeclaa kalluunka favorite game-kaygu waa PUBG-ga movie-ga aan u jeclahay oo aan daawaday waxa la yiraahdaa The 100 waa film maxaa la yiraahdaa serious Red New York Real Madrid Adidas CNN Africa Subax Cafe Pizza khibrad iPhone Turkish Airlines Hargeysa Muqdisho Dhamondi waxaan u mahadcelinayaa kanaalka aqoon guud runtii wuxuu hayaa shaqo aad u wanaagsan oo looga baahan yahay meel kasto wax laga barto oo qurbe ah marka si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa walaalkay injineer Cabdi Xafiid oo ah mulkiilaha iyo managerka
kanaalka aqoon guud waxaan rajaynayaa mustaqbalka dhow inuu aad u horumari doono shaqooyin kuwan ka waaweyn oo gaari doono waxaan kaloo rajaynayaa in ardayda seniorka ah oo wadankan jooga wali in oo si kasii qaadi doono interview ama waraysi. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi.